أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد walaalayaal mar kale waa maxamed saalax ustaad maxamed saalax oo aad si fiican u garanaysaan horena idinku soo duubay barnaamijyo ku saabsan waxbarashada bishii lasoo dhaafay waxaan qabtay 2 xabo ku saabsanaa inuu mid caruurahan teenage-ka oo late teens ilaa dhowr iyo 20 arrimo ku saabsan iyo midaan u bixiyey buundooyinkii iyo beerihii la dhex marayey cajalada buundooyinkii iyo beerihii la dhex marayey dadkii fiirsaday aad bay u taabatay waxayna ahayd waaqic reality ah oo jira bay ahayd waxaan ku faraxsanahay in dad badan say tahay ay u qaateen galabtii waxaan ka hadlayaa 3 woori anigu saa ogtiin emotionally baan ka hadlaa emotion waxa weeye dadku inagu badanaaba soomaalidaynu waxaan ka hadlaa IQ iyo calculations laakiin emotions waa waxyaabaha taabanaya qofka taaban but that's the real life 3 woori barnaamij aan u bixiyaan rabaa inaan kala bix ka dhaho 3 werwer 3daas waxal bay u baahan yihiin mid waxay tahay horena waan u sheegay cajalada hore aan duubay oo aad dhegaysateen dhibaatada ka soo gaarta carruurta soomaalida sii wad soo wad iyo waxbarashadooda inta ku dhacda galabta waxaan ka hadli doonaa 3 topic oo isku dhow aan rabo inaan hal mar halkooda dhigo si aan aniguna waqtiga u urursho igu ururto idinkana idinku ururto ko waxa waaye carruuraha inta 5 sano ay maqnaayeen maalin iskuul A iyo B lagu qoraan la geyn bishii March this year la soo celiyey qaarkood meelo la geeyo assessment laga qaaday oo la yiri you are like year 8 carruurtii imika 16 waa dhaafeen 17 bay aadayaan haddee waxay leeyihiin hooyo iyo aabbow idinkaa ka mas-uula maxaa ku xiga ereygaasi waa wooni idinkaa mustaqbalkaygii babushay so what I do what I want to do waa ku soo xigtaa sidee looga hortagaa waa ku heshay pointiga labaad waxa weeye waxaa la yidhi carruurta marka horeba aabba la'aan baa haysay hadda hooyo la'aan baa ku darsantay waa islaamiyii keerka banaabay oo 3 barka carruurtii markay quraacda u diyaarin lahaayeen markay soo dhoweyn lahaayeen markay waraysan lahaayeen markay homeworka la eegi lahaayeen 3 barka shaqada aaday habeenkii may soo noqday cunugaasi weliba wiilashu xaggee aadayeen markii hore hooyuu lahaa hooyadin isgon pointiidan ka hadlay pointiga xiga waxa weeye gabdhaha dhalinyarada ah ee 2 dhalka ah ee 3 dhalka ah ee la fogeeyey oo qaahire iyo kenya loo fogeeyey oo ninku hadduu rabo halkiisanoo maru tago halkaana sigilka ku yahay yaa idu ah emotional keligooda ay la seexanayaan keligooda ay carruurta korinayaan ninkii shalay soo guursadana kulbi inuu wad iminka ragga haddii la waraysto qiilal bay sheegi doonaan taagiisa ee sidaan ku hormaray pointig waa sheegay good intention baa loo wada adhanaa ilmahana maasha allah cultureka diinta dhaqanka luqadda soomaaliga luqadda soomaaliga iminka soomaaliya xataa luqad kama jirtaa arrintaan ina xaliyo waxa weeye see baa la yeeray cunugii top set buu ahaa markuu yareed laga kaxayey set 1 GCSE grade 8 buu keeni lahaa laakiin hadda waa 0 kulleeg buuna ku socdaa isagoo weliba intii ka weyn feeling baris carruurtii la filahaa buu arkay waxaa ka daran meeshii laga kaxeeyey baa lagu soo ceshay xaafaddii baa lagu soo celiyey xaafaddii laga wada nacasnimada waalidkiisu xataa ma wada walaheed cunugii manchester magaaladii laga guura way meeshii baa lagu soo ceshay markaasuu arkaya carruurtii saaxiibadiis oo tubse dalkan fadhiya
حاجة ديارنا أقول you know, I do my A level, biology, chemistry. Why? I want to do pharmacy, engineering. You know, so funny, I'm not doing anything. Very sad. Very sad. هذا لا. هذا الله قايم. قالوا ما يصون نقدين ناس تيار. يجوا يرينا. فما الله بشيء ما حد يجري you are under 16 school بالجيري يا خاص. assessment ولا يقعد يقاركو ستري ست 4 very few بس تمنتج. هذا أرني already year 9 year 8 year 9 كيتم وكام. دراسكو سلاح فريسنا. امتحان كي يمكن السوق أيام وحاسوينا الله يصدق إيه دي grade 2. And December as usually كل جود البنايا. هو لا تريان وحيران يعني. هذا هو engineering you medical you can't do. And probably you will retake. You do again. You might be B-Tech if you do well. That's the reality. All of the qolada ku xigtana waa qolada imtixaanka waa gelin doon hadda laakiin September laga rabo 17 inay aadaan college qolada hore hadday hadda haan lahayd June March iyo June iyo tala kala insiin lahaa hadda waa late talo ma jirto khamiista hadda ajirada dadka dhigsan khamiista soo dhigina siyaasi okay mid baa tala iga marka wixii dhacay way dhaceen message-kii galabta ugu weyn oo 100,000 pound yiqiin badan maanta waxay tan weeyeen caruurtan waxaan rabaa inaan fikiyo insha Allah with the help of Allah wiilashaas soo fikirayna kii sanadka hore yimi oo 2 iyo 3 keeni doona iyo kan hadda yimi oo aan weli GCSE ba gelinba oo zero GCSE ku bixi doona college caadi ayaan loo dirin totally college caadi ayaan loo dirin أما ترى هذا نين جال كير ما هو هذا نين نحن العكس جال بنفدي ما ربنا هذا ترى هذا إذن كآخر الجواب دون حساب تاس أنا ولا مرحتي بانك هذا العكس مرسنا عرفتي عتلا نو كل جدول برايفت كل باجين إنسان 10,000 كاش أنا إنسان إذن كأي غير مشاكل إنسان أما قريه سومالي سو كذا أما حقبة ديبا إذن كعنك كو عيار مستقبل كينا حتى وإنه جيب كينا كو عيار 10,000 بعد كيسا دومري بعد سو أنو كما كحين سي ما حكا عرر يا متعان صوت أنت قولي هاي هدو أسان كنتكو هناك هورتا أصاح في دي ديسمبر قاري مايو جنايون هدو سيار عبد الله ما جن هدو قري موي هلا يابين أنا على كشقي وحسن كورتينا وعلينا هاي الحمد لله سومالي في عم باتاي دقن با صبرتي دين با صبرتي انتي هلكا انتا جرني انتي كقوضي عدبا كو كبينا واسيبينا 10,000 كاش GCSE مينيموم شن صدح ساينسا ماتس لبا انجليش RE ياما كنتر ميد فضل سنة دبو غور تيرا سنة دنبا غور تيرا سنة كحيقة wuxuu ka fiicnaan doonaa kuwii hore u joogay xag baan ku kabayna weydikaas hadda raadi September raadi kuleekin waxaad tiraa sorry thank you very much next year alagaa sanad dambuu tegayaa kuleejkuu rabo wuxuu oranayaa A levels 978 waayu already maskaxdiisa oo furfuran tahay weli fahamkii baa ku jira vitamin D-gii baa ku jira xoogaa waa nool yahay weli markaas olo waa taas olo hee halkaasaan saarka private school fiicanaad raadinaysaan 5 baa la diyaarinaysaa kuwii galay imtixaanka oo 4 keenay maadooyinka qaarna intay ku dhaceen baad ku celinaysaa
kan hadda cusubna waxaa la mid ah caruuraha turki imika soo noqonaya oo 17ka jira oo 18ka jira oo waqti laga dhumiyey qaar iyaga oo year 12 turkiga dhiganaya la soo celiyey waa ogyahay kulli halkaasaa marinayna war ilaahu 19 gaar GCSE caruurtaas waa inay qaataan haddii kale xabsiyada ka raadinaysaan idinkana mas-uuliyaas kale annaga ilaah baana soo diray inaan saa idinku sheegno yarto alif baa la soo ceshay turki oo maxaa dhacay may turkigu waa xumaad walaalay 6 bilood way akraay taas waa taas meel baan sarataas cunuga maxaa rabaa war ilaahu 19 ha gaaro isagoo diintiisa wata isagoo kalbikiisa wata isagoo dhaqankiisa wata isagoo jiisiisa wata inuu meeshu ka bixi karo haddii kale functional skills isha sanoo dambe GCSE dhaqankiisa iyo wixiisana hoos u dhacay waayo wuxuu u tegi doonaa qola kale oo meelahaas jooga asalka arag qodobka labaad wuxuu aad u xuseeyaa waalidiinta dumarka u badan ee Yurub degan weliba UK baan joogaa shaqadu ceeb maaha aad baan ugu ammaanay dumarka inkastoo la rabay raggii hadday joogaan inay mas-uuliyadda qaadaan ayna ahayn waa ogtihiin carruurtu 3:15 ay ka soo baxaan iskoolada cunugu 4 waa jooga hooyadii 5 baxaysa ama 8 imanaysa carruurta markay yimaadaan iyagaa la isaga tagaya mid baa meel ku tahaya xagga waa qudaay qaday casha iyo khamiis gasho saasuu qur-aanku aadaya hadduu rabo ma diyaarin badan 8 wuxuu soo noqonayaa 7:30 isagoo daalan no homework sidii buu ku seexanaya xataa inuu cashi baa subaxdii dambaa la gaaraya isagoo quraan baa laga yaabaa saa iskoolka ku aado hal waalid buu lahaa hooyuu lahaa hooyadiina waa ka mashquushay I feel sorry for them aabihi aawe ma naqaano aabayaasha qaarkood dadka waa ka qurux badan yihiin waa ka baabuur qurux badan yihiin waana ka lacag badan yihiin qaarkood jegooyin bay hayaan codadkooda iyo xaaskoodina waa taas maxay ka talaa marka waalidu anuu rag mahayo dumarkaan la hadlaya cunug maxaa dhacay wiilkii markuu ogaado wiilka hooyo inay 5 baxayso wuu soo daahinayo meelaha dhuxul soo maraya waana meelaha lagu halaabo waa meelaha lagu halaabo 5 ilaa intuu dhaxaysa 9 kuna waa waqtiyada ugu xun ee dhalinyaradu wiilashu wali suuqa galaan afartii barku imanaya hooyo sii baxaysa gurigu imanaya game board galay game xoogaa ciyaaraya sidii buu ku tagay waxaa la ogaaday carruurihii hooyooyinkood balaabeen galabtii shaqada in akhlaaqdoodina hoos u dhacday waxbarashadoodina hoos u dhacday anu macallin baan ogtiin ikidi sheegi maayo ilaa weydiino cunugan bilkoor green buu ahaa rikoorkiisu reer maxaa ka dhigay aniga hooyo keliya ana seeyala shaqana waxaa iga tala ah ilaahay baa shaqo bixiya hooyooyinoo lacag meesha rabtaa ka keenaa carruurta galabtii waalid bay u baahan carruurta kale kuma filla isma dhegaystaan carruurta waalid bay u baahan soo dhoweeya waraysta ii soo fadhiiso halkaan hooyo ii war wejigooda fiirsha maanta cunugii halkaasaa wejigiisa laga akhristaa maanta hadduu faraxsan yahay cashar fiican bay ahayd casharku fani buu ahaa imtixaanku waa soo baasay hadduu murugaysan yahay ama waa la buligareeyey ama waa qatan yahay ama sadkii baa laga dejiyey ama waa loo hanjabay ama dhib baa ku dhacday ama wax buu qarsanaya laakiin haddaada wejigiisa fiirin ama carruurtaa badan adna keligaa baa tahay physically baad ujeedaa saasuu ku korayaa disattachment waxa la ku dhacay already DDD dad disorder waxa la dad saddex ere weeye oo abaa ku saabsan dad deficiency disorder baa ku dhacay ama red mind hooyadana ama xagga kartay
saasuu ku koraya disattachment waxa la ku dhacaya kaligiisu iskorinaya kaligiisu ismaamulaya sigaar buu saa ku baranayaa dad nootiyu saa ku baranayaa 5 ilaa 8 inta u dhaxaysa meelahaasuu taagan yahay take away baa loo gadayaa beri haddii boolis isagoo wada ku yimaad hala yaabeen ila quraan baad ka ogeyd adna ma jir u joogto gabadhii ka weyneedna quraankii u dirtay lama hubo inuu tago lama hubo waayo gabadhii carruurtii yarkaad bixaysa halka maxaa iga tala ah galabtii 3 haddii la gaaro biliis guryaha jooga carruurta maamul idinkaa yaqaan lacag saa ku haysa haddii kale waa in aabbuu joogo oo mas-uuliyaddii la baro haddii kale wiilasha waaweyn shaqagey gabdhaha shaqagey adigu hooyaa tahay adigu macallin baa tahay adigu kulli lacag baan raadinayna waxaa dhici kara islaan u shaqayso carruurta inay idana shaqa tagto no adiga carruur baa tahay adiga very jail ma intaraa tahay adiga subaxdar okay war 6 to 3 shaqay no more no more carruurtiidaa timi yaa lagu afdargaraynaya carruurta lacag baa ka daba arrintaasna xal bay maaha anugu markuu ogaado in waalidku la xisaabtamayaan buugtii la eegaayo homework la eegaayo la jeegaraynaayo la maanadgaraynayo waxa weeye wuu ogaanaya in la xisaabtamayo sidaa daraaddeed wuu yaraynayaa gaabka geli doona qodobkii labaad buu ahaa qodobka saddexaad wuxuu ahaa gabdhihii la yiri ordaya carruurta kaxeeya oo dhaqan iyo kaljan bay soo baranaya oo nairobi ku xaniban oo ku cadilan oo qaahira ku xaniban oo ku cadilan oo malaysia ku xaniban ku cadilan oo muqdisho ku xaniban ku cadilan gabadha xasuuq male nimanka guursada aw waxaa laga dhaho war adaa ka fiican kuwa keerka iyo keligooda anigu anaa ku biilaya fiiri somali tradition go back guurka soomaalidu waa laba bes nikaax iyo biil nimanka soomaalida waxaa oran larday hindi iyo aada soo arka gabadha iyo wiilku halkaasay is haystaan mootooyin bay saa isugu dhegan yihiin gabadhaasi family ugu sarreeyay kasoo tegaysaa wiilkaasi adduunka saaxiib la tahay innagana odagii hal san uu baqan yahay sida soomaaliya sacuudi carabiya wan yeer uu baqan yahay I can tell you gabadhaasi emotionally dareenkeedu sax ma aha haddaanu sax ahayna decisionka ay gaadhaysaa waa qalad sidaa daraaddeed carruurtaa sax u korin maysa abayaalow dadka dhegeysandan uma sheegaan intaan adaa la rabaa saa isugu yirahay marka labada doonyood doonta lacagta ee london iyo doontaas halkaas dahabka ah anigu maxaa saan u leeyahay marka anigu maxaa saan ugu qaylinayaa ma dowladdaa lacag siisay ma community baa lacag siiyo yiri arrintaa sheeg idaba jooga maya maya anigu waxaan ahaa nin soomaali waxaan ahay walaalkii carruurtaa laga hadlayo abti iyo adeer baanu ahay gabdhahaan la hadlayana walaalahay weeye carruurtoodna waa sidoo kale gabdhaha laga fogaadana walaalahay weeye abti iyo adeerna waanu ahay wiilkan saa yeelayana adeer iyo abti baanu ahay waxaan ogahay idinkama qarin karo free one allah give us reward ilaahay baan na soo diray muxuu yiri dulqarnayn haadaa raxmati min rabbi markuu shaqada qabtay alxamdulilah ilaahay baa waafajinta qaba aniga meeqaa iga cilmi badan meeqaa iga diinta badan aqoonteeda laga yaaba halkan you don't know that's the reality and insha allah dad badan baa waxay u tari doontaa dad badan baa ku fikan doona you know why you know what we want inta haddaan yeelno meelaha daldaloolada dad soomaaliya oo muslima soo saaraynaa oo iyagu wax istarax
oo idinka wax idin tara dadkan la hadlayo oo muslimka wax tara oo soomaali wax tara oo berito ummadeenaya maxamed noqdo oo ku faano haddii kale maxay noqon doonaan dad adduunka ku dulman oo waliba muslim oo laleeyahay ma yaqaaniin waa dembiilayaal waa criminal waa family burburay ma shaqaystayaal guide ma leh mentoring ma leh la taliyaal ma leh aqoon-yahano ma leh culiyo ma leh community midaysan ma leh ayaa la oran doonaa taasaan ka hordhacayna insha allah and I tell you waxaan maqli jira anoo yar wixii rag u kaco rabbina waa rabbina aqbalo waa rumoobaan mid kale cajiladaydaani waxay u tahay role model way tusaale u tahay boqolaalka walaalahaya oo gabdho iyo wiilal leh oo aqoontaan leeyahay iyo ka badan ku faraxsanahay walaalaha dumarku u badan yihiin oo dhegaysta barnaamijyadayda oo ducada ila daba taagan oo jecel aqoon-yahankiini maanahay idinkana waa idin jeclahay waxna wadan soo gudbinayaa ilaahay nahadiya meesha aqoon-yahanada community leaderska masaajidyada qof kastaa roolkiisa qaato and we can do dad wax bartaan nahay dad muslimaan nahay talentii baan nahay aqoon baan leenahay dhaqaalaan haysanaa ilaahay baan haysanaa rasuulkeena mentor noo ahaa wax naga maqan ma leh markaas dadan hore la caawin waxaa qalda naftayda shidaa baa shaqa ku leh waxaa wanaajiyana ilaahay waa ku mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu